iyadoo sanadihii ugu dambeeyay ay si weyn ugu soo badanayeen dalkani Jamhuuriyadda Djibouti. Howlaha ganacsi ee dadka Soomaalida ah ayaa waxa qaar ka mid ah bangiyada Soomaalidu ay ku leedahay waddankani Jamhuuriyadda Djibouti waxa ay soo bandhigeen horumarka ay ka sameeyeen dhinaca baananka. Bangiga Salaam African Bank ayaa waxa uu soo bandhigay horumar weyn oo dhinaca istiraatiijiyadda bangiyada ah, kaasoo mas'uuliyiinta bangigaasi ay ku macneynayeen horumarka dhinacyada kala duwan leh ee ay ka gaareen qaabka maalgelinta iyo weliba dhigashada lacagaha. Jaamac Darwiish oo isagu ka mid ah mas'uuliyiinta Salaam African Bank xarunteeda Djibouti ayaa waxa uu ka warbixinayaa horumarka ay ka sameeyeen dhinaca dhigashada iyo weliba qaadashada lacag. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warun oo sanadkii dhawaa waxaanu bilownay nooca maalgashiga bunuugta Islaamiga ay ku shaqeeyaan ee la yiraahdo Islamic Deposit, oo ah in bangiga uu qofka macaamilka uu dhiibto lacagtiisa, markuu lacagtiisa u dhiibtana uu bangigu ka shaqaysiyo lacagtana markuu ka shaqaysiyo bangigu uu faa'iido ka soo saaro, faa'iidada uu ka soo saarayna uu maartay bangiga iyo qofkii maartay hantida lahaa ay qaybtamaan, iyadoo oo qofka hantida iska leh la siinayo 70% faa'iidada soo baxday, 30% la siinayo bangigu uu qaadanayo faa'iido ahaan uu qaadanayo. mashruucaasi runtii wuxuu ahaa mashruuc uguba oo cusub oo aanu sanadkii dhawaa bilownay oo hore aan u jirin wax tar fiicanna uu ka soo baxay, mashaariic badanna aanu kaga guuleysanay inaanu fulino. meelihii uu bangigu maartay uu ka faa'iideystay oo maalgelinta badan uu sameeyay ka geliyay waxa kamid ahaa cuntooyinka ama raashinka waxa loo yaqaano, waxa kamid ahaa qalabka dhismaha, waxa kamid ahaa gaadiidka, waxyaalo badan oo noocaas ayuu geliyay. dad badan oo kala duwanna waxa way ahaayeen dadkii lacagta dhiibtay oo bangiga lacagta u dhiibtay, iyagoo dadkaasi ahaayeen dad Djiboutiyan oo intooda badan ay ahayd Djibouti dadkeeda ahaayeen, dad badan oo kale oo dibadaha lacagta ka soo dirsadeen ay jireen oo lacagtooda sidaa ku soo dhigtay. bangiguna markii uu bixiyo juhdi badan iyo maartay dadaal badan uu bixiyay wuxuu ku guuleystay ilaahay kaalmadiisa in uu maartay faa'iido fiican oo tijaabo hore ah uu soo saaro. Cabdirashiid Bare, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Djibouti.